amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna bahaya beeraha masaracna aqligo shaqeeyo cududaynu mala aqligo shaqeeyo cududaynu mala ayd lagaga bahaya beeraha masaracna cirku markuu curteedao cadilkee shubo inta biyaha celisaan cirifyada badaha gala beeraha masaracna cirku markuu curteedao cadilkee shubo inta biyaha celisaan cirifyada badaha gala beeraha masaracna wax kastoon cunaynana cadiyo caana mooye carra kalan ka keenay beeraha masaracna wax kastoon cunaynana cadiyo caana mooye carra kalan ka keenay beeraha masaracna wax kastoon cunaynana cadiyo caana mooye carra kalan amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا waxaan soo dhaweynaynaa waftigan ballaaran wal horkacayo simaha jabal Soomaaliya beeraha ma sha Allah aad bal soo dhaweynayo waftiga horkacayo iyo isuduwaha gobolka Saraar gacmo fara soo dhaweynaynaa marxaba binku soo dhawaada oo leenahay waa beertii maartay faam macal xilsi gobolka Saraar ee Caynaba ma sha Allah marka agaasime beertan muddo imkaas maartay tacabkan waxa oo maartay shakhsigan beertas kale ay beertaas imka tacab lagu tabcayay
waa beertii ugu horeysay ee gobolka Saraar laga abqaalo hantida u galay runtii waa hanti aad fara badan shakhsiyan guriga Caynaba nin deegaan reer Caynaba ah waxa la wixii hantiisa beerta u galiyay waa beerta ballaaran geel bay leedahay ari bay leedahay lo' bay leedahay digaagiba halka joogay leedahay iyo sarci marka ma sha Allah beertana maartay kulay ka dawlad ahaan waxyaalo badan oo maartay loo qabtay way jiraan sida maartay ijiin iyo tuubooyin waa la siiyay qalabka yar ee beeraha waa la ku caawiyay dawooyinka barbaartay kulay kama marnin waxa kamid ah baashi sheeg fiyada oo maartay ku maartay ay tacab badan runtii u geysato cagaftu oo ay gasho beerta ama saacado badan oo ay qoto oo maartay ay lagu beero saraac lagu beero marka ma sha Allah dawladda kama gacan badin laakiin intii aan ka doonay wali kama hayno isuduwahan gobolka Saraarna runtii aad iyo aad buu maartay wax loola qabtay wallahi markaan laga hadlayo uu riigiliya uu riigilma malsiya uu la soo booqda wixii gacan soo galana uu la soo gaarsiiyaa oo beeraha uu gaarsiiyaa uu qaybiyaa wasdu aad iyo aad runtii ku suntan wax qabad xitaa hadaan waxba hayn uu soo loo yimaadayo wuxuu la siiyay riigilin marka maanta ma sha Allah haddii aan maanta agaasimihii guud ee Jabal Soomaaliland la taaganahay beerta agaasimo wada aragtaa ilaahay ku aragtay wax qabadkii ka dawlad ahaan way idinka suweynaa ina gacan qabataan oo aad wixii aad loo awoodaan loo qabataan aad baan idinka suweynaa waan idin soo dhaweynaynaa anigoo ah Xirsi Cabdi Axmed kana wakiila iskaashatada horseed Caynaba gaar ahaan dooxada Farmaraa beerteedu ay tahay ama mashruuc ayagu waxa saaka halka kan aan ku soo dhaweynaa ugu soo booqday agaasimihii guud ee wasaaradda beeraha Cabdikariin Aadan Cadde iyo isuduwihii gobolka Saraar Faysal Cismaan ayaanu soo booqday waa soo dhaweynaa waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaa ku soo dhawaada beeraha agaasime waxaad ku soo dhawaataa beeraha ku soo dhawo beeraha gobolka Saraar ku soo beeyo Caynaba ku soo dhawow anaku dhawaan ma tacabka bilownay intii aad 2017 intii ka dambeysay ee xoolo ay bixeen ayaan anagu beeraha u soo jeesanay hadaan nahay gobolka Saraar meel fiican baanu marinaynaa agaasibada indhahaga ku macallina kulli maanta kormeer baad noogu timi waana ku soo dhaweynaa aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaa adiga iyo wasaaradda beeraha iyo isuduwaha gobolka Saraarba dhamaantiin waa idin soo dhaweynaa gacmo furan ku soo dhawaadaan leenahay agaasibada maanta Ilaahay noo ka keenay inaad wax nala aragto oo gobolka Saraar waxa weeyaan markii hore xoolo dhaqato ahaa laakiin beeraley baan isu bedelay tacabkina wuu muuqdaa waa inaad wax nala aragtaan waxa weeyaan aad iyo aad baan waxa weeyaan aan soo dhaweynaa arintaas waxaan kaga faa'iideysanaynaa imadka aad noo timi inaad wax nala aragto oo wasaaradda wax nala aragto agaasimi aad wax nala aragto waxa kale oo isaguna aan halkan ammaan uga soo jeedinayaa isuduwaha beeraha gobolka Saraar Faysal Cismaan ninkaas aad iyo aad buu noola dadaalay intii karaankiisa aad buu noola dadaalay dhiirigelin fara badan buu na siiyay waxaan oo dhan isaga ayaa waxa weeyaan shacabdan oo dhan isaga noo jeexay nagu dhiirigeliyay ma sha Allah halkaas aan wax marinaynaa waxaan mar weyn si weyn naloo taageero aad iyo aad wax nolola eego noo qiimeeyo tacabkayaga waxaan u baahanahay horta imika waxa noogu daran cagafyadii baa noogu daran oo gobolka Saraar cagafba ma joogto cagafyada ma joogaan taa kuwa bareefada baan lahayn oo dad beeraha ku cusubawna dadaalkayga kale ma xuma mudayr baan wax bilownay meel fiican bal alxamdulillah rabbil caalamiin aanu maraynaa wixii naloo qaban karo oo wasaaraddu ay nagu taageeri karto oo qalab ah sida cagafyada oo kale iyo waxyaalaha kale ee dhaamamka oo kale oo baciyo waa dhaamamka waa ciid weeyaan oo waxa weeyaan ma laha plastic ma yaalo in plastic noo ku xidho cagafyadana naloo keeno sida ugu dhaqsaha badan horta cagafyo aanu helo iyo wixii kale ee technical beerada aanu u baahannahay intaasoo dhan waanu idinka codsanaynaa waxyaalo badan waa naloo qabtay oo waxa weeyaan wasaaraddu way nala shaqaysaa gobolka waxa laga fuliyay greenhouse-yo fara badan baa laga fuliyo dhowr meelood ah adigu si hay'adda FOW oo kale waxbay nala yar qabatay iyad waxbay nala qabatay
waxa weeyaan qoladkan muxuu ahaa iyaguna Oxfam way nala shaqeeyaan kulli waxaan idee siyaasadda dawladdu baan iyaguna ku shaqeynayaan iyo wasaaradda beeraha ayay ku shaqeynayaan iyaga laftigoodu si fiican bay noo gacan qabteen de waxaan ku soo ururinayaa agaasime waxa weeyaan de waad aragtaa indhahaga ku macallina waxa weeyaan de waxbaanu qabsanay waxna la qabto baan codsanaynaa kani waxa weeyaan iskaashatadii degmada Wadaamagoy ku taalay ee beeralayda halka kan oo ay saaka nagu soo booqdeen wafdi ballaaran oo uu ka mid yahay agaasimihii beeraha iyo madax fara badan oo kale oo la socota isuduwihii beeraha beerta tani waa beer imika isgaadhay nimcadeedina fataxday aadna aan ugu mahadnaqayno 100% wax badan oo nalagala qabtayna ay jiraan haday tahay qaybta xagga dawladda haday tahay hay'adaha qaar iyo iskaashatada oo muruqeedii iyo maalkeediiba gelisay waxa ka soo baxa hadii aan wax idin ka tilmaamo sida hareerahayga ka muuqata basal baamiye kamsare badruul barbarooni cambe saytuun iyo qaar kale badan waxa jirta yaanyo iyaduna hadeer aan wali bislaan laakiin markii hore aanu aad uga faa'iidnay iskaashatadani waa mid midho dhal fiican aanu ku hayno kana rajaynayno inay sida tan si ka sii fog ama se ka sii macaash badan aanu wax uga helno annagu ahmiyad iyo isku xidhnaansho iyo kalsooni iyo wada shaqayn ayaanu heerkan ku soo gaadhnay imikana doonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaanu ka sii badbadino waxaanu haddaba u baahannahay ciddii hore ee nagala qayb qaaday iyo ciddii kale ee noo iman karta mid waliba inay si mad leh wax noogala qabato annaguna aanu midigta iyo bidixda labadaba ku qabsano midhadhalkeeda iyo waxa aanu faa'iidnay haddaan idinka warramo faa'iidadii sanadkiina dhaaftay waxaanu leenahay akoon waxaanu nahay dad badan oo iskaashata oo 60 qof iyo gudoomiyaha hantida noo taala iyo taanu tacabkan dib u gelinay iyo taanu qaybsanay ee imika ku dhiigaysanay ee aanu aad wax uga cunay intuba way farabadan yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh madaxdana soo booqatayna waanu mahadnaqaynaa 100% beertayadana waanu ku mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh wasalaam intii maanta waxa sharaf weyn noo ah inuu nagu soo booqday iskaashatadayada beeralayda ee Barako agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha aad iyo aad baan arinta ugu faraxsanahay runtii waa agaasimo hawlkar ah oo runtii gobolka iyo dalka intiisa kaleba ku ammaana shaqooyinka wacan ee uu ku hayo mudane agaasime beertan imika waxay jirtaa muddo 12 sano ah gobolkan Saraarna hadeerto markii hore wuxuu ahaa gobol xoolaleey balse hadeer wuxuu isugu darsamay beeraley iyo xoolaleey labadaba waanu nahay beerahana waanu beeraynaa wadiga arka iskaashatooyin badan waa ka jiraan waxaanu soo saaraa liinta waxaanu soo saaraa khudradda waxaanu soo saaraa noocyo badan oo kamid ah tacabka beeraha waxaanu soo saaraa raashinka la cuno gobolka runtii iminka dad badan oo beeraha tabah ayay leeyihiin oo meel badan baa shaqo ka socota greenhouse laga dhisay waxaanu wasaaradda iyo dawladda uga hambalyeynaa mashaariicda wax ku oolka ee dhinaca beeraha ay wax ka tareen oo runtii beeralayda lagu caawiyay mudane agaasime beertan maanta joognaa waxay jirtaa muddo 12 sano waxyaabaha aan runtii aad iyo aad baahida uga qabno waxa kamid ah dhinaca biyaha waxa kamid ah dhinaca dawooyinka maanta waxaanu waliba codsanaynaa in wasaaradda beeraha iskaashatooyinka iyaga beeralaydu mar gaar si fiican u macsuuno aanu idin soo diro invitation si aad mar noogu timaadaan oo bal beeraha aan waxaan tawacanay iyo waxa gobolka ka jira intaba aan aragno maanta waxa farxad weyn noo ah inaan joogno beertii iskaashatadii Barako aniga iyo agaasimaha guud waa socdaal shaqo oo agaasimaha guud nagula joogo kormeeriya beerihii oo soconayay mudane agaasimo wada aragtaa beerta tacabkeeda dhaamkeeda waa indhaha ku macallina horumar weyn baa laga sameeyay gobolka xagga beeraha gobolka wuxuu dhaqaaqay xagga beeraha sanadkii hadda u dambeeyay ilaa 3 riig ayaa la qoday oo dhulka la geliyo wada beera ah oo beerihii ku xigeen ka faa'iideysteen greenhouse-yada waxa weeye aad uga badan marka waxay taasi ku tusaysaa niyadda loo hayo isfahamka loo hayo dhulkii in wax laga soo saaro
halkan waxaa ugu dambeeyey kolley mashruucan kaash forwardka qodqodka dhaamkan lagu ballaadhiyey oo lagu dhooba qaaday ayaa ugu dambeeyey waxyaabihii aynu ka qabanay wasaarad ahaan insha Allah wixii dambe yimaadana diyaar baynu la nahay hal mashruucan iyo beeraha kale gobolkaba anagu dadaalkayga waxa weeye inaan dadka wax gaarsiino isugu qaybino beeraha horumarino aqoon wixii aan ku dhaana siino insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa maanta farxad weyn noo ah inuu kormeer noogu yimaado agaasimihii guud ee wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Aadan Cadde mudan agaasime ku soo dhaw Caynaba beeraheedii waxaan joognaa maanta oo hadda in taaganahay beerta iskaashatada macallin xirsi waad arkaysa beerta ballaaran ee wax soo saarka inta leeg leh waa beerta ugu weyn gobolka marka beeraha la eego wax soo saarka badan aanu ku faano sida runta waa beertii bilowda greenhouse-yada ka bilowda gobolka ku dayashada badan iyo tusaalaha u noqotay gobolka tacabka la galiyayna oo adiga arkaya taladeeda iyo tilmaanteeda intaba wasaaradda beeruhu qayb weyn bay ka lahayd haday dhulka tahay haday fikirka greenhouse-yada tahay haday rakibaadda tahay haday dhaamamka tahay intaba wasaaradda beeruhu rool weyn ayay ku lahayd inta aanan shaqadu aanan hayn sarunta agaasime waxaanu ka shaqeynaa beeraha tanaan ugu number 1 meesha tacabku kaaga jiro waanad ku soo noqnoqotaa halkan hadda waxaad arkaysay sunflower-kii saliidii waanu tijaabo ku wadnay ama badin ku wadnay waanu doonaynaa mustaqbalka dhow inaanu saliid soo saaro hamigayga hadda Caynaba aanu ku fakarina beeralaydu inaanu soo saaro saliid sunflower oo tii cuntada oo dadku kaga maarmo saliidahan aan fiicnay dibadda laga keeno runtii waanu dadaalaynaa agaasime hay'adaha nala jooga waxa kamid ah oo hadda ugu activesan Oxfam oo si runtii hadda gobolka fulisay 12 greenhouse oo aad qaarna soo aragtay qaarna aad arki doonto insha Allah haddana farkamo qodna tacabkiyo oo beeralaydi waana badan yihiin baahidana way badan tahay waxaan jecelahay in loogu dadaalo inta badan hay'adaha in la soo riixo in cayayaanka iyo waxyaabaha dawooyinka oo aad dib weyn inooga haysato si runta waa baahi laga siman yahay iyo xagga tababarada waa baahi laga siman yahay in wax qabsadayna wax qabsanba waa baahi ka siman yahay taasi oo tiimka naloo soo diro sanadkiiba 3 jeer 4 jeer aad baan ugu baahanahay agaasime kulli wixii warbixin xafiiskan ku kala qaadan doona hadii la idin ka dhigo kormeerkeena sii wadanna insha Allah ku soo dhawaad agaasime runtii waa farxad weyn bay inoo tahay dhamaanteen aad baan ugu faraxsanahay inaan gobolka imaado inuu noqdo gobolkii ugu horeeyay ee aan kormeer ku soo maro qaybta beeraha gobolkan waa gobolada lagu yaqaan xoolaha marka taariikhda ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland ba laga hadlayo oo ceelka Caynaba ku yaala laakiin kormeerkan maanta sameeyay iyo warbixintii hore aan hayay markan wasaaradda beeraha ku soo biirayba waxaan arkayaa isbedel weyn oo dhinaca beeraha ah in loo dhaqaaqay oo bulshadu u dhaqaaqday waliba dadkii madaxda ahaa iyo dadkii hantida lahaadna ay qayb ka yihiin iskaashatooyinkan oo tusaale weyn u tahay beertan aynu maanta joogno runtii oo tacab aad iyo aad u badan galay waana fikir sax ah sababtoo ah dunida guud ahaan waxa imka loo dhaqaaqay tacabka beeraha iyo wax soo saarka quudka bini'aadamka inta la isku haystay la isku gumaysana waa intaasun nimaan wuxuu cunaya la soo bixinay runtii gob maaha marka reer Caynaba iyo guud ahaan gobolka Saraar inay u dhaqaaqaan wax soo saarka aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo ku faraxsanahay markaan beeraha waaweyn arko aan arkay inay qayb weyn ka tahay wasaaradda horumarta beeraha khaasatan isuduwaha iyo tiimkiisa gobolka in dawladuna gacan weyn ku leedahay idinkuba aqarteen runtii beerihi aan soo marayna ay ka muuqato shaqo badan oo ka socota ama greenhouse ha noqoto ama biyo lagu soo kordhiyay ha noqoto ama qalabkii wax lagu buufinayay ha noqoto ama tuumbooyin iyo qaybta waraabka ha noqoto dhaamka weyn imka halkan ku yaalo oo bacdi wasaaraddu saartay iyo dawladdu marka waxa kale oo farxad noo ah inay gacan weyn ku leedahay dawladdu aydan maanta mar haddii maanta oranin wali dawladda ma aanan arkin waxbana nalooma qabin oo aynu ka hadlayno in wax la kordhiyo iyada lafteeduna waxa weeyaan runtii waa sharaf weyn bay u tahay qaranka iyo dawladnimadaba anaguna ka wasaarad ahaan indhahayga baan ku aragnay inkastoo marka horeba warbixino fiican haynay inkastoo haynta dawladuna iska yartay marka horeba guud ahaan
dalkuna doorashooyin u dhaqaaqay oo diyaargarow badan oo xagga doorashooyinka ay jiraan oo hanti badan oo qarankan lahaa doorashada la gelinayo oo waxa weeyaan hay'adda guddiga doorashooyinka qaranku maxay tahay culays badan uu saaran yahay haddana wasaarad ahaan runtii aad iyo aad baan u dadaalaynaa waxaan ku dadaalnaa wixii idinka dhimana halkan nooga sheegteen iyo wixii kale aanu ku dari karnaba inaanu ku darno waxa kale insha Allah ballan qaadaynaa inaanu ku soo noqnoqono gobolka iyo gobolada kale dalkaba waayo gobolada bariga waxba beertaan baa la yiraahdaa dawaata maantaba cadceed sacab laguma qarin karo cid idin diidaysa inaad tiraahdaan gobolkii cagaarnaa caynaba ama muxuu ahaayay saraar inaad tiraahdaan cid idin diidaysa ma jirto geelid ku darsataan muxuu ahaa beerihii ku darsataan ilaa tacabkii waa bilowdana marka runtii aad baa mahadsantihiin ballanteenu waa inaan wada shaqeyno idinkuna inaad dawladda la shaqeysaan runtii abaritartan dawladdu waa dawladdiini xoog iyo taageeraba way idinka baahan tahay inkastoo aan gobolka saraar lagu caanaananaynin difaaca qaranka iyo ka howlgalka iyo halkuu ka istaagay aad baa dhammaantiin mahadsantihiin runtii farxad weyn bay tahay kormeerkan iyo hawl shaqadan ku joogo gobolka saraar oo aan dhowr beerood runtii ku soo kormeeray iyo dhowr iska shato inagoo saraar joogna oo dadku markay saraar maqlaan qalbigooda uu ku soo dhaco xoolo dhaqato siiba geela inaanu dhirta inta leeg hoos maxay tahay ka dhinac khudbadaynayno oo cambihii maxay tahay lilmacaanti iyo lilalaanti halkan ku yaalaan cambihi aynu arkayno dusheena geedka saytuunka dhararkiisu inta la eg yahay maraha inta la egna sida uu ku yaalo runtii malaha dadku malaynayaan inaynu saraar joogno dhamaantii wada ka mahadnaqaynaa dadka ganacsatada ah ee gobolka u dhashay iyo madaxdii maxay tahay degmada oo mar runtii hawl weyn geliyay in dhulka loo dhaqaaqo waa talaabo fiican waana siyaasadda dawladda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa tacabka beeraha ee gobolka la geliyayna intii aan iskaashatooyinka marayay iyo beeraha gaarka loo leeyahayba runtii tacab weyn baan aragnay waa ku mahadsantihiin dawladdeenu hana Itaaliyaraato waxbana in aqoonsi rasmi ayaan haysanin haddana dadaalka beeraha idinka laftiinu iskaashato kasta aan u tagnay ama soo kormeernay wuxuun baa dawladda ka gaadhay waxaad halkan nooga sheegtay in daweyna la keenay xanuunada qaar lagu daweynayo dhaamkiina dee laga howlgalay oo gacan laydinku siiyey intii la qaban karayay intaasiba dee waa waxtar waynu dadaali haynteenu ma buurna dal ahaan ma buurna waliba dee iminka waqti doorasho oo iska kala guuro culays badan jira baynu ku jirnaa in aan beeraha loo dhaqo dunida oo dhanna nin aan wax beeran runtii gob maaha wayna wax la soo baxno qofku wuxuu cunayo ugu yaraan waa inuu la soo baxo beerta lafteeda dee dhul badan bad haysta waa arkaynaa insha Allah biyana wada heli tacabkana in laga sii badiyo waliba maxay tahay hadhuurkii iyo qamadidii iyo digirtii wixii la cunayay in aad u muuqdan baan jecelahay oo geedweynta lagu lamaaneeyo si ugu yaraan qoysaska ka tirsan iskaashatadan iyo shaqaalaha ka shaqeynaya inay waxooda la soo baxaan oo wax yar dibadda uga baahdaan runtii beeraha qaar baan tago sunflowerka ka baxay oo saliidda ay ka baxday geedkii karkateega oo aan Soomaaliland lagu tijaabiyay tacabka inaynu shaqeysano un bay inaga xigtaa wax qabadka gamca wada shirbi wax ku goyn dawada shaqeynayna